اسعى والله سعى ayar. واكا نباسكي ورياضة واكا نباسكي اوكي نباسكي واكا نباسكي واكا نباسكي سهلة احمد القصه خبرتك هو يا kadambe gaaskayga
وحفرحت وينيا المانتا دولة إثيوبيا أتوقع نايسي إنه صدق ويسي إلا تسمى إلا كيكا إلا هلكن الجوكيو إلا هلكن الجوكيو لفعيسة أديات بس وينا لفعيسة أديات بس ما سنتين صدق وين تقاليها magaalada Lafaciisa ee Barre Sheekhdheer eeriyadani muddo ka maqnaa waxaan dareemay markii aan imid shalayto horumar badan dadka wanaagsan dhaqaalaha aad u soo kacay mashaariic fara badan oo ka socota eeriyada magaalada oo tabaday bilaabatay taasoo mahadnaqeeda runtii inta badan ay leeyihiin dawladda Itoobiya ee federaalka ah oo waddanka horumarinaysa iyo dawladda ismaamulka kalalka shaqada ismaamulka Soomaaliya oo tallaabooyin runtii atarane horumar leh ayaan iyadana aragnay taana dawladda ku hadlaya labada dawladood baa wad baa Lafaciisa lagu soo dhaweeyay geedi socodkii aan ka soo bilaabnay waqooyiga Ameerika aan ka soo bilaabnay Mareykanka iyo Kanada ayaa maanta halka aan ku nimid waxaan u mahadnaqaynaa dadweynaha reer Jigjiga ee sida fiican noo soo sagootiyay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa sidoo kale dadweynaha reer Lafaciisa ee na soo dhaweeyay sida wanaagsan noo soo dhaweeyay aad baan ugu shukreynaa waxa weeyaan waxay noo bilaabmay nasri iyo maxaanada midnimo ayaa inoo bilaabantay ugaaskeenuna khayr Allah siiyo waxa uu inoo wadaa waa midnimo marka la helo wax kasto inaga maqan waan helaynaa midnimadu waxa weeyaan waa shay ay diinteenu ay nagu guubaabisay oo diinteenu nagu boorisay oo ilaahayna faraya weeyaan waxa weeyaan waa midnimo marka la inaga helo dhaqaale iyo wixii loo baahan yahay adeega ee bulshadu u baahan tahay waxa weeyaan waa la helayaa ilaahayna wixii khayr ahayna waafajiyo waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum ugaaskeennii ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi oo aan u haraadnayn muddo dheerna gaab halkaa inaga galay haddaan nahay beesha Gadabuursi oo maanta gaabkii inoo buuxsamay ama xidig meeshiisii yimiday ah waxaan halkan laga bilaabo safarka halkaa imika kaga baxaynaa waxa lagu socdaa Lughaya oo arrimo badan oo horumar ah laga samayn doono sida dekad iyo dariiqyo wax sirihi ma jiro mashruucyadaas ayaa loo socdaa dekadaas oo muddo dheer dhaqaalaheena iyo dhaqaalaha labada wadan horow ka ayaa dariiqay kaleena sugaysaba aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ognahay Jigjigada ka dhimitay waan mahadnaqaynaa halkan waan mahadnaqaynaa ilaa halka dadka iyagu joogo kulligayo ee ugu dambaysa ummadda waan ugu caleema saarayna waana la sugayaa dhalinyarada aqoon-yahankii iyo odayaashii hawshan ku soo daalay soo qaban qaabiyeen marka hore doonayaan inaan mahadnaqo war halkan mahadnaq uga soo jeediyo marka labaad shacabka reer Lafaciisa iyo degmada Barre guud ahaan ayaan doonayaa halkan aan uga mahadnaqo mahadnaqa kale waxa weeyaan guud ahaan ugaasku maanta inuu halkan yimaado oo suldaanku yimaado oo ay dibadihii ka soo hamoodaan oo doctorku dibadii ka yimaado dawladda deegaanka Soomaalida gogoldhigeega uu madaxweynuhu hogaaminayay ee uu dalka dadka ku macsuumayay ee dalkii waa nabada kale ee lahaa ee Cabdi Maxamuud Cumar meel walba ku soo maray ee uu afayeenka oo ah gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya Maxamed Rishiin halkan ku soo maray ayaa suura gelisay gogasha wanaagsan ee nabadeed ee maanta dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya taala ayaa keentay maanta in salaadiinteena iyo ugaasyadeena iyo duqeydeeniba halkan ay yimaadaan ta kale xilli barwaaqa oo ilaahayna uu soo dhaweynta ka qayb galay ayaa iyadana wadalkaysan quruxda iyo wanaagga dhulka maanta ku yaala ducadii ugaaska iyo salaadiinta iyo odayadu hadii noo raacdanayna marka aanu guud ahaan waxaan leeyahay dadka maanta hawshan isku taxalluujiyay ayaan guud ahaan u maqlay ee guddiga qaban qaabada ugaasku ay ugu horeyso ee odayaashu ugu horeeyaan ee mataqaana duqeyda iyo garaadada iyo salaadiinta iyo dadkeena mataqaana ugaasku dadku xukumo salaadiin hoose jirto ka sii hooseysa oo reeraha xukunta oo uga sii hooseysa oo hawshii fududaynayso qaab dhismeedkiiba fududaanaya intaas oo dhan baan aanu mahadnaqayga inaan soo jeediyo doonaya aad iyo aad baad u mahadsanyihiin
gudoomiyaha degmada iyo guddigiisa fulinta ee shalay ilaa maanta halka inoo taagnaa ee berrina inoo taagan ee gaadiidka iyo guud ahaanba dadka gaadiidleyda iyo ganacsatadaan u mahadnaqaya kolley wada gaadhsiin mayse guud ahaan dadka hawshan ka qayb galay baan u mahadnaqaya ugaaskana ugu dambayn waxaan leenahay ducad noogu soo guraanado ugaas annaguna gacmahan warsanna ilaahay aan wada barin waxaan amakaari waxaan u mahadnaqaynaa ugaaskeenna ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas doodi iyo inta la socota ee salaadiina ee culummo leh ee sharaf leh ee madax leh ee maamul leh intaasaan gacmo furo ku soo dhaweynayna haddaan nahay bulshadii reer Lafaciis iyo Samaroon dhammaantiiba salaamu calaykum marka waxaan leeyahay ugaas ilaahay ha kugu karaameeyo ummadda intaan la eg ee halkaan maanta adiga kaaga hor timiday allah kugu karaameeyo adiga iyo suldaanka kugu soo dhaweeyay meeshaba waxaan idinkula dardaarmayaa tuulada Lafaciise ummadda idin soo dhaweysay ee idiin dhiibatay wilaayadoodii iyo xilkii idiin dhiibatay idinkuna cadaalad ku dhaqa una duceeya barwaaqa Allah ina siiyo muddada dheer aan kala maqnayna waxa ay ahayd dhibaatadii uu dhergigu geystay bay ahayd waxaan ku kala maqnayn oo halkaan nageeyay marka imikana ilaahay mahadi waan soo noqonay dhulkeenina ilaahay farxad buu ka riday waxa ugu yar markaan tusaale yar soo qaato inagii af Soomaali dugsiyadeenii lagu dhigayo